جنك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. ضاق عن وجدي بكم رحب الفضاء لا أبالي شرقه من غربه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأئمة الهدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan idin ahaantiin meel kasta aad joogtaan. waxaan idin rajeynaya in iska nabad qabtaan, caafimaad qabtaan. intayna xanuunsan ilaahay subxaana watacaala caafimaad sariica siiyo. intayna diiq iyo dhib ku jirtan ilaahay dhibka ha ka saaro. insha allahu tacaala waxaanu ka warrami doonaa barnaamijkeenii taariikhul andalus iyo albaxnimadii andalus baynu insha allahu tacaala ka warrami doonaa. waxay noo joogtay qeybtii afraad taariikhdii macaaniid taariikhul andalus oo xadaaradu ah. waxaan ka soo warranay toddobaadkii hore qaabkii andalus dhammaantii ay gacanta ugu dhigeen muuse ibnu sayr iyo daariq ibnu siyaad ayaanu ka soo warranay. waxaanu ka soo warranay inay andalus dhammaantii ay muslimiinta gacanteeda ku jirtay hal magaalo ma ahaan, magaaladeena loo yaqaanay madiinatu sakhru baleya magaalada loo yaqaanahay. waxaanu ka soo warranay magaaladaas furitaankeeda inay damceen inay furtaan muuse ibnu sayr, laakiin cala alasaf ay waraaq uga timid khaliifkii muslimiinta ee waliid ibnu cabdilmalik, inay waraaq uga timid odhanaysa degdegii ku kaalaya. maanta waxaanu ka warrami doonaa insha allahu tacaala soo noqoshadii muuse ibnu sayr iyo daariq ibnu siyaad iyo halka ay ku dameeyeen. waxaan kaloo ka warrami doonaa casrul wulaad, waxa aynu ugu magac darnay, iyo cusurta iyo fatraadka ay kala leedahay taariikhul andalus ay taarikhyanadu ku calaamadiyaan qaybaha ay kala leedahay. waxaynu ka soo warranay toddobaadkii hore muuse ibnu sayr iyo daariq ibnu siyaad inay damceen oo qorsheeyeen inay noqdaan oo ay adeecaan amarka uga imanaya khaliifkoodii iyo amiirkoodii amarka uga imanaya. muuse ibnu sayr halkii bay markaa socod ka soo bilaabanaya daariq ibnu siyaad dimashq bay yimaadeen. dimashq marka ay sidaa u yimaadeen waxay la kulmeen waliid ibnu cabdilmalik oo geeriyooday. waliid ibnu cabdilmalik markaa waxaa la wareegay khilaafadii walaalkii suleymaan ibnu cabdilmalik ninkii la odhan jiray, oo isna isku ra'yi yahayn walaalkeed iyo inaan la furan andalus inta hadhay. sababta culimadu waxay sheegaan sabab fara badan bay sheegaan. matalan raaqiba sarjani oo kale sabab buu sheegaa. sababaha ay waraaqda ugu dirayeen ay lahayn u furna waxay ahayd waliid ibnu cabdilmalik oo arkayay muuse ibnu sayr oo doonayay inuu furto qustantiniya, isagoo sii maraya wadanka loo yaqaano faransiiska iyo talyaaniga sii maraya. talyaaniga markuu ka gudbana wadamadaas loo yaqaano yugoslafakia iyo romania maraya, halkaa ka gelaya markaa dhulkan imika turkiga la yidhaahdo, isaa markaa qustantiniya ku furanaya. marka wuxuu u arkayay dhulkaa marka uu marayo, dhulkaa uu doonayo inuu maro, in ay ka go'i doonaan muslimiintan sharqiga joogta ee bariga joogta, inay ka go'i doonaan muslimiintaas galbeedka jirta. marka uu waliid ibnu cabdilmalik waayi doono meel uu madad iyo taakula uga diro ciidankaas. marka wuxuu arkay inaan muslimiinta mahlakada la dhex gelinin. saasuu markaa waraaqda degdega ugu diray. dhowr jeerna wuu u diray waraaqa, wuxuu ku yiri jooji futuuxaadkaad wadid. laakiin hamigiisa iyo hilaalkiisa fog baa waxa uu siinayay muuse ibnu sayr inay iminka ugu dhowdahay guushii. sidii uu markaa kusoo noqday, taariikhyadu waxay sheegaan markaa muuse ibnu sayr inuu sanadii 97 ee hijriga meelahaas in uu raacay suleymaan ibnu cabdilmalik oo markaa doonayay inuu xajo.
daa'imanna wuxuu ku ducaysan jiray baa la sheegaa Muusa ibnu Nusayr inuu Ilaahay subxaana watacaala dilo isagoo dagaal ku jiro halkaa ku shahaado qaato, ama hadduu Ilaahay subxaana watacaala taa u hirgelin waayo inuu hirgeliyo uu ku dhinto madiinadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. sidii baana Ilaahay subxaana watacaala tii dambe Ilaahay waafajiyey markii uu Maka ka yimid ee uu soo xajay Madiina marayo ayaa uu geeriyooday. ama Madaariq ibnu Siyaad baa warkiisa waxa uu dhameysay maalintii uu la soo noqday Muusa ibnu Nusayr ayaa u dhameysay. taarikhyahanadu waxyaabo fara badan bay sheegaan, niba meel buu ku dhuftaa, laakiin war sugan intaasun baa laga hayaa. intaas markaa insha allahu tacaala ku gaabsanaynaa. markii markaa Muusa ibnu Nusayr raximahullah raxmatan waasica saasuu ku dhintay. wuxuu ahaa kaana shaykhan mujaahidan balaqa cumruhu 75 sano ayuu jiray maalintii uu soo noqonayay. welina waxa uu damacsanaa inuu furto Yurub oo dhan. yani waxay ku tusaysaa himmal caaliya inuu lahaa. waxa la sheegaa taariikhdu sheegaan 60 sano markii uu jiray inuu furanayo dhulkan Maqrib oo dhan. markii Maqrib loo magacaabayay wuxuu jiray beesh cumru sheegaan 60 sano. waxa ku tusaysaa inuu yahay sheekh markii hore historygiisa biographigiisa markaa akhrisanaysa waxa ku tusaysaa inuu ahaa weligiiba inuu bay'ad jihaad ku dhex jiray. waxaa markaa nin sheekh oo jihaad ku weynaaday welina doonayay inuu damacsanaa inuu dhul furto. innagana waxa laga yaabaa qofku hadduu 60 gaaro ama 50 xagga uu dhaafo in la yiraahdo adduunkii uu iskaga saahidayaa, xaalkiisu uu ku soo ururo dikri. way fiican tahay dikriga xilliga qof markuu daada u dhawaado inuu dikriga badiyo, laakiin Muusa ibnu Nusayr isagu waxa uu arkayay cumrigiisa uma arkayn challenge iyo caqabad uma arkayn. wuxuu arkayay cumriga maadaama marba cumrigu sii kordhayo inuu khayrka iyo wanaagga sii siyaasado sii farabadsado. saasuu markaa raximahullah raxmatan waasica saasuu ku dhintay. waxaa timid Andalus markii uu ka imanayay Muusa ibnu Nusayr waxa uu dhiibay inankiisii Cabdulcasiis ibnu Muusa ibnu Nusayr. waa ninkii furtay magaalada Lisbon ninka loo yaqaan ee Portugiiska ku taala, caasimadda Portugiiska ah. inankiisii markaa wuxuu uga dhigay waali dhulka Andalus waali uga dhigay. Cabdulcasiis ibnu Muusa ibnu Nusayr culimadu waxay sheegaan inuu ahaa sida aabiyo kale mujaahid ahaa, nin aad iyo aad u wanaagsan ahaa. waqti yar buu 2 sano buu markaa xukumayay culimadu sheegaan. intaanan markaa u gudbin casrul wulaad waxaan rabaa inaan ka horeysiiyo saynu isla fahno markaad akhrisanaysid ama markaad baranaysid ama markaad daraasanaysid taariikhda Andalus waxaad arkaysaa waxyaabo fara badan. waxyaabaha waxaa ka mid ah waa taariikh aad iyo aad u badan oo dee waqti fara badan bay jirtay, 8 qarni bay jirtay baa culimadu tilmaamaan. aakhiru mamlakati ka baxda gacanta muslimiinta waxay dhacday baa culimadu sheegaan 790 meelahaasay ayay dhacday qarnaada. marka baxnimada 8 qarni iyo taariikhda 8 qarni soo taxnayd. marka culimadu waxa ay u qaybiyaan wax loo yaqaan fatraat, qaybay u qaybiyaan. qaybaha waxay ugu qaybinayaan waxa weeyaan waa qaybo iyadoo ay isu qaybisay taariikhda laftirkeeda isu qaybisay. qaybahaas waxaad ku arki doontaa matalan tusaale ahaan markii Muusa ibnu Nusayr saaba uga noqdayba waxa bilowmatay taariikhyahanadu tilmaamaan iyo mu'arrikhiintu waxay tilmaamaan wax loo yaqaano casrul wulaad ama imaaratul wulaad ama xukuumatul wulaad waxay ugu magac dareen ama jiilul muwallidiin wax loogu magac dareen baad arki doontaa kutubta qorata. intaaba waad ku arkaysaa. waxa weeyaan wax kalena looguma jeedo waan horey ku soo sheegay xalqadii ka horeysay. waxa weeyaan wulaad waxa weeyaan Andalus waxay hoos tegaysay waagaas waxay hoos tegaysay barasaabkii ama xukuumaddii ka jirtay Maqrib bay hoos tegaysay. Maqribna waxay sii hoos tegaysay khilaafadii muslimiinta ee umawiyiinta ee fadhigeedu ahaa Dimashq ay hoos tegaysay. marka jaranjaradaas ayay maraysay amarkii oo amirtu ay kala marayeen. Muusa ibnu Nusayr markaa wuxuu haystay Maqrib isaga wada xukumi jiray markaa Andalus iyo Maqrib oo dhan. saasa markaa casrul wulaad loogu bixiyay. casrigii Soomaalihan casrigii barsaabada iyo waqtigii barsaabada ay noqonaysaa. waqtigaas waa laga sii gudbay. waqtigaas ilaa wuxuu socday culimadu waxay tilmaamaan ilaa laga gaaray Saqr Quraysh ninkii lagu magac daray Cabdiraxmaan ad-Daakhili markii uu soo galayay Qurtuba lagu wareejinayay
oo taariikhdu ay ku beeganeed meelaha 138 hijriga ilaa 138 hijriga 95 hijriga ilaa 138 hijriga. culimadu waxay ugu magac dareen casriga ama qaybta waxay ugu magac dareen waxa loo yaqaano casrul wulaad ama fatratul wulaad. casriga marka laga gudbo waxaa loo gudbayaa culimadu waxay ku magacaabaan qaar waxay ku magacaabaan Rabiic Qurtaba, qaar waxay ku magacaabaan casrul imaara ay ku magacaabaan ama casrul imaaratul umawiyya ku magacaabaan ama fatratul imaaratul umawiyya ku magacaabaan. wax kalena maaha waxa weeyaan markii ay dhacday dawlad umawiyya markii ay ka dhacday sharqi ama bari markii ka dhacday waxa ay Maghrib ka bilowmatay ama galbeed waxa ka bilowmay imaaro kale oo umawiyyiin oo lagu magacaabo imaaratul umawiyya fil Andalus ay ka bilowmatay. waxaana bilaaway markii ay dhacday khilaafadii umawiyyiinta ka talinaysay Dimashq markii ay dhacday ay qabsadeen nimankii Cabbaasiyiinta ay la wareegeen xukunkii waxay damceen in ay baabi'iyaan oo ay cirib tiraan dhammaan tafiirtii umawiyyiinta, reerka umawiyyiinta iyo tafiirtoodii wixii rag ahaa gaashaanqaad ahaa in ay baabi'iyaan. marka waxa ka badbaaday bay culimadu tilmaamaan in yar baa ka badbaaday. intaa waxa ka mid ah intaana waxay u firdhatay galbeed bay u firdhatay oo marka ay miciin bidayso islahayn halkaas ayay malaha barsaabadiinii xukuumaddiinu maamul jirtay ay joogaan. marka waxa ka mid ahaa ina yaroo la odhan jiray Cabdiraxmaan ibnu Mucaawiya ibnu Hishaam ibnu Cabdilmalik waxa weeyaan wuxuu ka mid ahaa mid ka mid ah wuxuu ahaa khulafadii soo martay umawiyyiinta. marka inuu awow u yahay oo Cabdiraxmaan loo jeedo ninka ay taariikhyahanadu ku magacaabaan Saqr Quraysh ama Cabdiraxmaan ad-Daakhil ninka lagu magacaabo ayuu ahaa. ninkaasaa markaa bilaaway imaaro umawiyyiina oo iska kala dhexdhexleen rag badan oo umawiyyiina iska kala dhexdhexleen ilaa iyo waqti badan bay socotay. Maxamed ibn Caamir ninkii loo jiray uu qabsanayo xukunkii la wareegayo oo xaajib noqonay marka dambana uu imaaro halka ay ka bilowmato Caamiriin dowlad Caamiriya halka ay ka bilowmayso. adigu fatraadkaasi waxaan uga jeedaa inaynu wadciga isla fahanno. fatraadkaasi culimadu u kala qaybiyaan fatraadkaas haddaba waxa ay sii kala leeyihiin oo ay culimadu usii kala qaybeen matalan Raaqib Zarjani oo kale iyo culimo kaloo la midaba I think waxaan weeyaa Nafqudib inuu isna la mid yahay. anyway adigu fatraad bay culimadu u kala qaybiyaan. culimada fatraadka ay u kala qaybiyaan fatraadka qudhiga sii kala qaybiyaan waxay u kala qaybiyaan waxay yiraahdaan waxa jirtay waxay yiraahdaan fatrad matalan fatrada casrul al-imaara umawiyya ama casrul wulaad waxay u kala qaybiyaan waqti ay xoog lahayd iyo waqti ay dacfi ku jirtay oo tamar daray. waqtiga ay xoog lahayd bay waxay culimadu markaa baaraan yiraahdaan waqtiga maxay muslimiintu xoog ku yeesheen oo ku awood bateen, waqtigan ay dacfiga ku jireen ay tamar darada ku jireen maxay dacfiga u sababay. maxaa u sababay inay noqdaan ummad ilbaxnimo oo aqoon iyo maadi ahaanba kora, maxaa u sababay inay ummad dib u dhaca oo jihaad iyo ilbaxnimo iyo aqoon labad intaba dib uga dhaca. fatraadkaasi markaa u kala qaybiyaan iyo qaybahaas. markaa waxaa bilowmatay 95 waxaa bilowmatay ilaa 138 hijriga casrul wulaad wax loo magacaabo. waxaana markaa u horeeyay saan hore kusoo sheegay in ninka la oran jiray Cabdilcasiis ibnu Muusa ibnu Nusayr 2 sano meelahaas uu haystay. waxaa la wareegay xukunkii nin la oran jiray Ayuub ibnu Habiib al-Lakhmini la oran jiray oo ay ilmaabtay ahaayeen Cabdilcasiis. Muusa ibnu Nusayrna abti uu ahaa waayo waxa dhashay baa la tilmaamaa walaashii baa dhashay baa la tilmaamaa Muusa ibnu Nusayr walaashii baa dhashay. isna meelaha 6 bilood meelahaas uu haystay xukunka. waxaa la wareegay nin la oran jiray Al-Hurr ibnu Cabdiraxmaan al-Thaqafini la oran jiray baa la wareegay xukunka. Al-Hurr ibnu Cabdiraxmaan welina markaa imaaradii kamay bixin inay hoos timaado dowlad al-Maghrib inay hoos timaado dowlad Andalus inay hoos timaado. Al-Hurr ibnu Cabdiraxmaan al-Thaqafi waxa magacaabay baa la tilmaamaa nin la oran jiray Maxamed ibnu Yaziid oo Maghrib haystay oo Qayrawaan joogay baa magacaabay baa la tilmaamaa. 95kii ilaa iyo waxa la tilmaamaa ilaa laga gaarayo waxa la 97kii ilaa 100kii hijriga ilaa taariikhda markay ahayd laga gaarayo uu haystay.
waxaa dhintay markaa 99 hijriga isagoo kan haysta Al-Hur ibn Cabdiraxmaan isagoo haysta waxaa dhintay khaliifka muslimiinta ee la oran jiray Suleymaan ibn Cabdilmalik ayaa dhintay. waxaa la wareegay markaa xukunkii khilaafadii muhiimta waxaa la wareegay Umar ibn Cabdilcasiis al-Khilaafa ar-Rashida ninkii la oran jiray khamisu khulafaa ar-Rashidiin ay taariikhyada qaar ku magacaabaan. Umar al-Cabdilcasiis waxyaabihii min xasanaat kamid ahaa wanaagyadii intuu khaliifka ahaa falay waxaa kamid ahaa aad u farbaday, laakiin waxaa kamid ah marka Andalus la eego in uu u soo magacaabay nin la oran jiray as-Samh nin la oran jiray as-Samh ibn Malik al-Khawlani nin la oran jiray uu soo magacaabay. sidoo kale wuxuu sameeyay in uu ka wareejiyo hoosimaadka ay hoos imaneysay Maqrib ay isaga toos u hoos timaado Umar Cabdilcasiis inay toos u hoos timaado Andalus. sababtuna ay ahayd in ay ahmiyad gooniya iyo muhiimadda ay leedahay Andalus. waayo ilaa Faransiiska qaybteedan hoose oo dhan bay ayay ka talinaysay. wuxuu arkay markaa in ay dawlad madax bannaan noqoto hoos iyo toos hoos imanaysa isaga hoos imanaysa. Umar ibn Cabdilcasiis waa ogtiin muu raagin waqti badan muu haysanin, haddana 2 sano iyo badh bay taariikhdooda ugu badiya tilmaamaan. haddana 2 sano iyo badhkaas waxaa ka hana qaaday cadaalad, waxayna ku tusaysaa waqtigaagu inuu bataa. Soomaalidu had iyo goor waxay tiraahdaa waxaan jirnay 60 sano 40 sano 50 sano jirnay, qaar 30 sano jirnay bay yiraahdaan. waqtiga oo ku faraba waqtiga oo bata oo kumanaanad jirtaa ma tilmaamayo inaad wanaagyo badan qabanaysid, laakiin waqtiga yar aad haysatay xitaa waad ka faa'iideysan karaysaa. waqtiga hadda 2 sano 3 sano waad ka faa'iideysan karaysaa. Umar Cabdilcasiis markaa muu raagin as-Samh ibn Malik al-Khawlani isna qudhiis muu raagin meelaha 3 sano ay culimadu ku tilmaamaan intuu haystay. isaguna xilkii waa lagala wareegay oo nin waxa culimadu ku tilmaamaan Imaam Dahabi iyo غيركii waxay ku tilmaamaan inuu ahaa nin mujaahid oo taqiyo warac inuu ahaa. dagaalo fara badanna inuu ku qaaday dhulka loo yaqaano bilaadul French ama dhulka Faransiiska inuu ku qaaday dagaalo fara badan, halkiina aakhirkii ku shahaado qaatay maalin Carafa uu dhintay. waxaa markaa wilaayadii la wareegay nin loo jiray Cabdiraxmaan ibn Cabdillaahi al-Ghaafaqi loo jiray. isna waqti badan muu haysan, laakiin insha Allah taala wuu nagu soo noqon doonaa. 2 bilood meelahaas uu haystay. isna xukunkii waxa kala wareegay oo bedelay ninkii isla markiiba horta waxa markii Umar dhintay Umar Cabdilcasiis markuu dhintay dib waxa loogu soo celiyay Andalus waxa loogu soo celiyay hoos maada Maqrib. marka nin loo oran jiray Yazid ibn Abi Muslim oo haystay Maqrib ama Maqrib al-Afriqi nin haystay oo Qayrawaan ka talin jiray ayaa waxa uu magacaabay nin loo yaqaano Ambassador ibn Suhaym nin loo yaqaano magacaaba. isna wuxuu ahaa culimadu waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin 103 meelaha hijrigu la wareegay ilaa 107 buu haysanayaa. waqti badan buu waqti dheer buu haystay marka loo eego waaliyadii kale Andalus soo maray, casrigaas soo maray, casrul ulaad soo maray. waxay ku tilmaameen culimadu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan inuu ahaa, nin mujaahid inuu ahaa, nin taqiya inuu ahaa bay culimadu ku tilmaamaan. culimada ayay ku tilmaamaan inuu aad iyo aad u wanaagsan inuu ahaa bay ku tilmaamaan. Ambassador ibn Suhaym waxyaabo badan buu ay culimadu ka xusaan. Matalan waxay ka xusaan inuu dhulkan Faransiiska inuu 80% inay gacantiisa ku jireen. magaalada yar loo yaqaano Sans magaalada yar loo yaqaano ee u jirta Paris wax yar Paris u jirta inay gacantiisa ku jirtay bay culimadu tilmaamaan. bilaadul marka haday matalan Raaqib Sarjani kale wuxuu sheegay xoranaya hadii bilaadul France haday 80% gacanta ay ku jireen 80% ay gacanta muslimiinta ku jireen, waxay tilmaamaysaa 70% inay Andalus inay Faransiiska ay muslimiin ahaayeen. Faransiiska nimanka maanta ay madaxweynihiisa ay ka fadhigi karlaan qayladiisa. waqtiga wixii ka dambeeyay 107 hijriga wixii ka dambeeyay taariikhyada waxay xusaan ilaa iyo laga gaaray 112 hijriga waxa isaga dambeeyay bay yiraahdaan 6 walaad bay isaga dambeeyay 6 waali bay isaga dambeeyay 6 walaad bay isaga dambeeyay culimadu tilmaamaan. waxaan ku tusaysaa waa muddo 5 sano oo yani 6 waali ay isaga dambeeyeen. waxa ku tusaysaa ninka muddo waxaynu ka joognaa 110 sanadood baynu ka joognaa intii 9 ka dambeysay. waxaanaynu mareynaa 12 waali
yani waxay ku tusaysaa waqtigaas waxyaabaha waqtigan casrul ulaad lagu calaamadiyo waxaa ka mid ah inay weliba waqtiyada dambe dacfiga imika waxaan ku jirnaa waqtiyadii quwada waqtiyadii dacfiga waxay cilmadu ku tilmaamaan inay intaana kasii badnaayeen marka waxay kusaysaa dhowr iyo 20 waali bay cilmadu ku tilmaamaan inay soo mareen waqtigaa yar yani waxa kusoo waqti 7 aad iyo aad u adag inay ahaa suraacaad fara badan oo qabaali iyo casabi inay jireen wixii intaa ka dambeeya wixii intaa ka dameeyey Andalus waxay u sii talawday casri ay lagu magacaabo casru dacfi laakiin intaanu casru dacfi aanu bilowmin waxa ilaahay subxaanahu wa ta'aala Andalus ku manaystay in loo oran jiray Cabdiraxmaan ibn Cabdillaahi al-Waafaqini loo oran jiray oo 112 hijriga meelaha soo qabsaday bay culimadu tilmaamaan aakhirkiina wuxuu ku geeriyoon doonaa macraka dagaal oo aad iyo aad u qaraareed oo muslimiin lagu tilmaamo ciidan muslimiin oo 50,000 ah in ay galeen dhulka Faransiiska ciidamo fara badan oo muslimiin halka ku shahiideen ay taariikhyahanadu tilmaamaan isku soo wada duubo waxay ku tusaysaa waqtigaas waqti wuxuu ahaa casri ulaad marka la eego waqtigaan imka ka soo waranay maanta waqti waxay ahayd muslimiintu ay xoog badnaayeen xoog badnida waxyaabaha ku tusayna waxa kamid ah inay awood lahaayeen waxa ku tusaya madiinooyin fara badan iyo magaalooyin fara badan oo dhulka Faransiiska kamid ah ayaan wax dagaal ah lagu furinay isdhiibay waxa ku tusaysaa marka inay muslimiintu awood lahaayeen waxyaabaha awoodda ku yeeshay marka su'aal ay tahay in la isweydiiyo waxyaabaha awoodda ku yeeshay waxa kamid ah jihaadka waxa kamid ah iimaanka waxa kamid ah islaamka iyo dhaqankooda aad u wanaagsana waxa kamid ahaa waxyaabaha awoodda ku yeesheen cunsurka qabyaalada oo ka marnaa meesha waxyaabaha waqtigii ay dacfiga ku jireen ay tamar darida ku yeesheen culimadu ay tilmaamaan waxa kamid ahaa in ay qabyaaladu aad iyo aad ugu faaftay insha Allah ta'ala doodka xiga waxaynu ka warrami doonaa macrakadaas oo macraka aad iyo aad u qadhaadhayd waxyaabaha ka runta waxyaabaha ka beenta waxaan insha Allah ta'ala ka warrami doonaa casru dacfi waqtiga lagu magacaabo intan muuqaal xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي وورائي التاريخ كوم رمادي الزخرفات أكاد أسمع نبضها والزركشات على السقوف تنادي قالت هنا الحمراء زهو جدودنا فاقرأ على جدرانها أمجادها ومسحت جرحا نازفا ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي عانقت فيها حينما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. وترى ما في من عيب